oo ay gabadhii ay lacag leedahay أنا waxaan kolka kula talinayaa gabadha lacagta leh iska raac maadaama de adduunkan lagu jiro ay lacagtii shaqaynayso oo ay gabadhii ku dhoofinayso ku soo dejinayso kolka gabadha ayaan waxaan kula talinayaa gabadha lacagta leh raac wiilka waxaan kula talinayaa inuu gabadha lacagta leh uu raaco oo magaranaysaa uu nolosha la wadaago gabadhan guurka degdega ah deel u soo bandhigtay de waxa uu xoolaheedii maanta lama heli karayo gabadh maanta xoolahiina ku haysa ma garanaysayeen kulana kaalay nolosha wadaagni lama heli kar ilaahay baa laga heli karaa kolka wiilka waxaan kula talinayaa de gabadhan lacagta leh ma garanaysay nimcada qarso oo iskala wada cidna iska sheegin barnaamijkan waxaan uga daleenaa isla markaasna aan mudnaanta iyo fiirada gaarka u siinaa dhibaatooyinka saameeya shakhsiyaadka qaar kamid ah inaan u soo bandhigno bulsho weynta dacalada dunida isla markaasna tala iyo fikir iyo aragti ay ka siiyaan waxaan idin leeyahay si ballaaran aynu ugu diyaar garowno barnaamijkeena ila talida fikirka iyo aragtida iyo waliba ray kastana waxaan leeyahay khadka telefoonku idin furan yahay waana dhiiban kartaan mawduuca aynu ka hadlayno marka hore waxaan jeclaan lahaa dhibanaha codsada in taladiisa loo soo bandhigo bulsho weynta ku dhaqan dacalada dunida isla markaasna ay gorfeeyaan ayna ka siiyaan xalkii ugu dambeeyay ee markaas uu sahlayay in dhibaatadaasi soo food saartay uu kaga bixi lahaa waxaan jeclaan lahaa hadda inaan dhagiina soo gaarsiyo inta aanan barnaamijka furin oo inaan gudagelin falanqaynta iyo faalayntiisa dhibanahan waa wiil kamida wiilasha deegaanka isla markaasna soo dhiibtay talo in lala taliyo oo markaas loo soo bandhigo bulshada fikir iyo aragti midaysanna laga siiyo codsiga wiilka soo dhiibtay taladan yaan jeclaan lahaa inaynu marka hore wada dhageysano aynu gorfeyno deetana aynu diyaar garowno sidii aynu tala iyo tusaale quman oo markaasi arintaasi uu kaga badbaadi lahaa isla markaasna u saali lahayd inuu dhibaatadaasi ay ka furdaamisay aan jeclaan lahaa marka hore waxaan jeclaan lahaa bal inaan dhagiina soo gaarsiiyo codsiga daawasho wacan naftaydu nafay rabtaa naftuna nafkalay rabtaa wadnaha nabarbaa ku yahay jacaylkana wuu nuglahay ma isweydiisay muddadii aad ku heli lahayd hanashada mustaqbalkaaga aad muddo u soo dadaalaysay adoo rabbi kaashanaya adduunyadani waa cajiib qofba qof buu jecel yahay waxaa macquul ah in aad adigu jeceshahay ruux balse uu jiro qof sida aad ruuxa kale u jeceshahay ka daran adiga kuu jecel haddana uma ogid wanaagga iyo jacaylka uu kuu hayo waxaa kuu muuqda qofka aad jeceshahay dhibkiisa iyo xumaanta uu kugula dhaqmo haddii xumaantaas aad u dulqaadanaysid maxaa kuu diiday qofka ku jecel inaad wanaaggiisa ku qadariso waxaan ahay wiil si fiican ugu soo barbaaray adaabta iyo dhowrsanida tubaha toosan kana sal gaadhay dadaalkii waalidkay ila garab taagnaayeen waa laga maarmaan in noloshaada qof uu ku sal lahaado uu ka mid noqdo qofka nolosha si dhab ah kula qaybsada waxaan muddo aad u dheer soo waday silsilada jacaylka oo ah mid aan sal guurin waxaan sheeko wadaag lahayn gabadh muddo 5 sano ah aad ayaan isugu fiicnayn waana qofka kaliya ee aan u qoondeeyay in ay tahay marwadii hanan lahayd noloshayda waayaha adduunku wuu iska waaya badan yahay waxaana gabadhan nolosha aan u qoondeeyay la dhalatay gabadh ka weyn oo reer lahayd haddaba markii aan u ambaqaadnay qorshaynta qoys loo dhan yahay ayaa gabadhii weyneyd reerkeedii ka dumay waxa ayna carqalad ku noqotay oo ay saameyn weyn ku yeelatay noloshaydii oo waxaa badatay fulin la'aanta ballankii aan galnay cimrigaa oo raaga cayn walba wuu ku tusaayay waxaa igu soo rogaal celisay gabadhii weyneyd oo ay tidhi naftayda iyo maalkayguba aday diyaar ku yihiin ee nolosha ila qaybso aniga haddaba haddii ay dhacdo inaad qofkaad jeceshahay wanaaggiisa ku cidlayso oo qofka aad jeceshahay xumaantiisa ku raadiso waxaa laga maarmaan ah nafta ku jecel inaad runta u sheegto si ay kaaga quusato oo adduunyada ilaahay qofka loo cajabiya uga raadsato waa arrin la yaab mudan xag walba oo aad ka egto xag jir ayaanahay kala dhowraya labada gabdhood
iyo waalidkood. Gabadha yar aad ayaan u jeclahay. Gabadha weynna waxay leedahay nolosha ila wadaag oo reer ha noqono wax qarasha waxba looma baahna ee aniga nolosha ila qaybso iska dhaaf gabadha yar. Haddaba anigu ma awoodo in aan gabadha yar nolosheeda ku cidleeyo maadaama aan ballan iyo axdi kala galay. Waxaan daawadayaasha ESTV ka codsanayaa in layla taliyo waayo talidii ayaa iga baahday. waa hagaag hadda hayaynu si toosa diyaar ugu nahay falanqayntii iyo faalayntii mawduucan aanu idinku talagalnay inaanu idin soo bandhigno isla markaasina aynu ka doodno xalka lagama maarmaankaana aynu ka gaadhno wiilkaasi codsiga soo dhiibtay ee aad maqasheen xilligaasi dhibaatada iyo waliba waxa uu ka cabanayo sideedaba waxay Soomaalidu tiraahdaa inta badan dadka waxay xiiseeyaan lacagta sababtoo ah haddii aad lacag leedahay baa la yidhi samada ayaad wada ka furan marka waxa wiilkaasi soo food saartay jacaylkii iyo gabadhii uu muddada idinla soo socday iyo walaasheed oo hanti diyaar u ah isla markaasina ku tiri guri iyo jacayl baana ku haya khadadka taleefanka mudnaan iyo fiiro gaar ahaan siiyo. halo salaamu calaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. marka hore walaal macaan waan kugu soo dhaweynayaa ka qaybgalka barnaamijka magacaaga iyo meesha aad igala soo hadlayso. والله وان كاقاد أسبق ما سنتها. xageed walaal macaan ka soo hadlaysaa? اتجاه. gaar ahaan سرعان. aad baa idin salaamaya adiga iyo shacabweynaha sharafta mudan ee ku dhaqan xaafadda koobaad ugu hore waxaan jeclaan lahaa fikirka iyo aragtida aad ka qabto mawduucan aan idin soo bandhignay in taladaada aad ka dhiibato. والله وان صح موضوع waxaan dhihi lahaa ninka labada naagood inuu sii tayaraaco. gabadhu la soo sheekaysan jiray xiriirku ka dhaxeeyay. inta raacbaan dhihi lahaa lacag yaa si waxba eegin inta maskaxdeeda xabaabiin. haye marka inta raacbaan leeyahay. gabadhana maxaad kula talin lahayd? gabadha weyn. waxaan ku dhihi lahaa xisho walaa inantan inantii cidi ay ka xisho marka waa dumaashidaa adigu guri hore soo martay iyadna reerkiisan hore ha qaadatay nabadgelyada ugu dadaal baa sidaa. adiga haddii aad ka mid noqon lahayd gabadhaasi yar ee hantida haysan balse qalbiga saliimka haysa ee jacaylkeega daacad u ah xaaladaasna soo food saar lahayd walaashaa kuugu imaleed maxaad samayn lahayd? wallaahi waxaan dhihi lahaa walaalo horta wallaahi waa arrintu aniga igu dhacda maba rinriiyada haye ma rabaan marka la talin igu dhacaan laakiin sayanta sab ku dhacana waxaan leeyahay ninkaagan ka hayso. aad baad u mahadsantahay waan kaaga mahad celinayaa ka qaybgalka barnaamijka adiga iyo shacabka sharafta mudan ee ku dhaqan xaafadda koobaadna aad baan idin salaamayaa mar kalena waxaan idin leeyahay Ramadaan Kariim. gabadhaasi way idin maqlaysan waxay tiri aan ma barajeynaya laakiin qof kasta ma jecla in dhibaato ay soo food saarto balse wax kastaba waa qoraalka Allah wax uu qofka markaas Ilaahay u qadaray un baa soo food saara aad baa adagtahay qof aad xidhiir la lahayd oo walaasha u soo bandhigtay oo isku kiin ogeyd in ay iyadii ku soo jirayso waa arin adag inta badan dadku waxay dhahaan jacaylka iyo lacagta barnaamijyo badan baa lagaga hadlaa ilaa meel walba dooda ugu weyn ee ka taagan waa lacagta iyo jacaylka keeba awood badan baa inta badan la isbarbar dhiga laakiin wali lama inta badan dadku waxay oranayaan jacaylka waa shay qaali ah lacagta laftirkeeguna waa laga maarmaan mararka qaar. halo salaamu calaykum. calaykum asalaam waraxma. marka hore waan kugu soo dhaweynayaa walaashay ka qaybgalka barnaamijka magacaaga iyo meesha aad igala soo hadlayso. walaal magacayga waxaa leedahay Muna Ahmed. Muna xageed igala soo hadlaysaa? halo degmada aan baro gaar ahaan magaalada Lafaciise. Muna adiga iyo shacabweynaha reer Lafaciise aad baan idin salaamaya laakiin waxaan jeclaan lahaa inaad aaladaada igala socotaad iska gaabiso isla markaasina taleefanka adiga ogaato. Muna may maqashaa? walaal maxaan si macaan ma ku maqlaa. haye fikirka iyo aragtidaada. fikirka iyo aragtida aan ka qabo caawa talada la soo dhigay waxaan leeyahay gabadha weyn xisho ma leeyahay walaal sababta walaashaadii ka yareed baa jacayl wiilka. haye markaas waxaan leeyahay waxaan teerna kuga dadaalayaa inay samirkeeda adkaysato wiilkana waxaan leeyahay ha ku tala furin ha ku ciyaarin gabadha. ma xuman Muna ay taladaadu oo waxaad leedahay walaashaa baa jecel dee iyada laftirkeega dhibaata haysataa marka iyada laftirkeegu way jeceshahay maxay samayn kartaa gabadhiina way jeceshahay iyadana jacayl baa wada.
markaa waxaan leeyahay gabadha weyn maadaama iyadu og tahay gabadha yar ayna ogeyn hawshan say u dhacayso waxaan leeyahay gabadha weyn inay xishooto haddii dee gabadha weyn jacaylkeegu uu baawar leeyahay iyadu u dhimanayso maxaa xala waxaan leeyahay iyadu inay samirkeeda adkaysato weeyaan marka gabadha weyn baad leedahay jacaylkaagu lacala hadduu xad dhaaf yahayna adigu adkayso oo markaasi gabadha yar ee walaasha ayaa uga bax booska hahe bal muna adiga hawshaas hadday kugu dhici lahayd والله كاسينا يقول على المشالي لكن إلهي بانتها كبرين أحلى إلهي لقى على بريويا aad baad u mahadsan tahay waan kaaga mahad celinayaa ka qaybgalka barnaamijka adiga iyo shacab weynaha ciziga iyo karaamada mudan ee ku dhaqan goobta adiga la soo hadlaysa waxaan idin leeyahay Ramadaan Kariim waan idinka mahad celinayaa ka qaybgalka barnaamijka aad bay muna iyo bulshada ku dhaqan goobta ay la soo hadashay u mahadsan yihiin inta badan qof kasta aad buu jecel yahay in hawl ayankaasi ayna soo food saarin isla markaasina ayna ku dhicin laakiin ninna isagu iskuma hayo mawduucan inta badan gabadha ayaa tala la siinaya gabadha weyn baa la leeyahay ka xisho wiilka iyo gabadha oo ka laakiin meel dhaliilo iyo waliba ay ka soo galaan dhibaatooyin sinaba laguma waayayo marka aan lamaanaas waxaan leeyahay dhibaato kastoo idin soo gaadha calooleedka iyo samirkeedii la yimaada khadka taleefanka ayaan mudnaan iyo fiiro gaara siinaya daawadayaasheeda ciziga iyo karaamada mudan halo assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal marka hore waan kugu soo dhaweynayaa ka qaybgalka barnaamijka magacaaga iyo meesha aad ka soo hadlayso ولا waxaan ka soo hadlayaa laanta hawada xaafadda toddobaad soonka shanaad aad baad u mahadsan tahay waan kaaga mahad celinayaa ka qaybgalka barnaamijka adiga iyo shacab weynaha ku dhaqan xaafadda toddobaad laakiin waxaan jeclaan lahaa aaladda inaad iska gaabiso oo aad taleefanka igala socoto si aynu u kala xo qaadano ما قشا ولا بعد ما حسنت هاي كل اللي ما قف لا قدر ولا أنا وياه لكن سأقول كلها تلنا كل العقبة ما يستعلم مبتدئ هاي جود وين كريستي ما كلها تلنا قبل دوين إني يعني هاد كريستي يعني ما إنه قبل دوين راعم بس أنا كقليسو ما هي قبل دوين المراعو أيام كلها تلنا ما دام العقبة يستو كل العقبة تكون وقت يا ما دام العقبة يستاهل أو لعبته وقدريو شعيل كي بدي سبك بحو تيرتين وكقدروها إن محادكو مثليسا أو مركز سلاه ليبا ويا سلاه ليبا شعيل يلعبوا سلاه ليبا يا وكذا لكن ده يسوي هدونا شعلنا أزادون شعلنا ده كل وحدينا يعناها فكر أنت إذا وحدينا يعناها إنه تيرتين وكقدروها ما دام يقولون معك يسته سوي من راعتين إنه كذا هاي بالويل كلا تلسيو توين بالعك وشعال مع قداديع دي وتاي توين رعباتر لكن تيرنا محد كلا تلين ويل كي ما دام الله تلسي قبل دونا تلي كاسو جيسا تيرت وحن لا ما تيرت سماح كل تيرت وحن لا ما دام ولا شعال سوق شيء يكون أو كل تبع يصير وقتها وحي كل سوق شيء هاي مركز وحن لا إلهي حكسي مكله ولا شيء يعني وده marka mid kale qadaadi haystaana Allah ku siiyay Allah ku siiyay lahaa adu hadaad wiilka ahaan lahayd oo laba gabadhna aad u jecleedood waqti isla soo qaadateen gabadh kalena ay markaas walaasheedo hadda koor islaa dumaashida bay noqonaysaa ay kugu soo jiray maxaad sameyn lahayd wallahi ana waxaan sameyn lahaa nogtahay waxaan sameyn lahaa kulli maadaama oo tayartaan shikiisan muddo dheer aan soo shikiisanin taweyn maadaama oo meesha lacag baa ku jirtay nogtahay hay tayarta lacag ma sidatay يعناها وحسوي ما راعي لها كل يعني كله قضاء راعي لها قضاء راعي لها أبدا ما تنتهي وقاعد ما عندي وناك حنتي ذي وضطوا صما يا ناك حنتي ذي شعيل كده وضطوا هذا هاي العق أذكر شيء بكفي عبا أبدا ما تنتهي وكاغا mahad celinaya ka qaybgalka barnaamijka adiga shacab weynaha ku dhaqan xaafadda toddobaad Ramadaan Kariim ayaan idin leeyahay way idinka mahad celinaya goob kasta si kasto nolol jaan qaadsan guud ahaan daawadayaasheeda qiimaha iyo sharafta mudan ee waqti xaadirkan soo fadhino way idin arkaysaan bilaadanka fikirka iyo aragtidooda kala duwan dadka qaar waxay dhahayaan markaan magaalada maanta kula kulmaysaniyo waxa loo rafaadayo bilaadanku wada roorayaan aroor oo dhan loo kala hayo waa lacag de lacag haday gabadhu haysato maxaa ka rafaadaya inuu gabadha lacag kale ma ku raaciyo
inna waxay dhahaysaa jacaylku waa shay aan lacagna lagu helin marka jacaylkiisa ha iska wato fikirka iyo bini'aadanka ayaa kala duwan nin kasta fikir iyo aragti u gaar u leeyahay daawaday haddaad arkayseen oo kale waxa uu dhahan waxaan dhihi lahaa maadaama gabadhu aynu qaraashic wadan oo ay tahay jacayl qalalan oo kaliya ay wadato de jacaylka macala dufankiisa lama haraacdo buu yiri markaas wiilku haraaco kulli bal khadadka mawduuc kaste iyo fikir kaste iyo aragti kaste oo ay soo bandhigaanna waanu soo dhaweynaynaa waxaan jeclaan lahaa bal hal iyo laba kamid ah miiseejada iga soo gaadhay bulsho weynta ku dhaqan magaalada Jigjiga aan ku horeeyay magacayga waxa la yiraahdaa Cabdi Maxamed Khaliif buuri waxaan ku noolahay magaalada Jigjiga gaar ahaan xaafadda Koobadaan waxaan kula talin lahaa gabadhaasi walaashaya in ay wiilka iyo gabadha ay isku dayso isla markaasina hantida ay wiilkaasi iyadu ku kasbanayso ay walaasheed ku kabto isla markaasina ay ku kaalmayso waxaan leeyahay walaalo labada qof ee walaaluhu waa labada ugu qiimo badan wada noolaanshaha adduunka balse waxaan ku leeyahay walaalo gabadhaasi walaashaya taageer walaasha iyo lamaanaha ay jeceshahay markaasi nafta ay isku hureen ugu horreyn waxaan salaamayaa bahda STV magacayga waxa la yiraahdaa buuri daawadahani Cabdi Fataax waxaan joogaa magaalada Jigjiga gaar ahaan xaafadda Koobaad waxaan marka hore halkan ka salaamayaa dhammaan shaqaalaha wakaalada waanu ka qaadnay baan leeyahay midaas la midana hawada ayaanu ku soo marinaynaa Ramadaan Kariim baanu hawada ka leenahay ugu horreyntii waxaan leeyahay buuri aan kula talin lahaa wiilka laftirkiisu intii uu dadaali karo uu dadaalay sidii uu kala qarin lahaa labada gabdhood isla markaasna uu ugu soo bandhigin inuu gabadha yar ku yiraahdo xaafadiina ama bas gabadhi walaashay ay arintaasi soo bandhigtay waa arin aad u naxdin badan marka waxaan ku leeyahay wiilkaas walaalo samirka aad muujisay Ilaahay baa kugu kaalmayn doona balse gabadha aad xidhiidh kala haydeen ha ku wacad furin waydun arkaysaan xidhiidhkii soo joogtada ahaa intaas oo dhan soo socday waxba markaasi kala galaya خدتك تلفون كلا يجا باقيا هلو السلام عليكم هلو ما مقشة السلام عليكم ولا المركور ما كوكو سو دوينا ياك قبل قالك برنامجك ما قاعد يا ماشي هذه قال سؤال ليسو حاجه دي قال سؤال ليسا هلو ها ولا له degmada dhanaan magaalo faamay okay magacaaga magacaad aad baan ku soo dhaweynayaa ka qaybgalka barnaamijka adiga iyo shacab weynaha ku dhaqaan degmada dhanaan waa idinka mahad celinayaa ka qaybgalka barnaamijka Ramadaan Kariim baan hawada idinka leeyahay fikirka iyo aragtidaada waxay gabadha lacagta iska joog haye gabadha yarta ay ma waqtigeeda isku geysaa gabadha weyn haye wiilkana markaasi wiilkii la talisay gabadhina maxaad kula talin lahayd haye haddaba aqoontiisa weeyaan hadda labada gabdhood oo walaalo u kala sheekeynaya mid lacagta ay raacaya si lacag aad baad u mahadsantahay waan kaaga mahad celinayaa ka qaybgalka barnaamijka fikirka iyo aragtidaadana waan soo dhaweynaynaa shacab weynaha ku dhaqan magaalada dhanaanna waxaan leeyahay caweydi isku haydin wacnaada Ramadaan Kariim baan hawada idinka leeyahay bal imika waxaan jeclaan lahaa in aan idinku duwo oo aan idin daawadsiiyo isla markaasina aad dhuuxdaan bulsho weyntii aan magaalada Jigjiga kula kulmay isla markaasina aan u soo bandhignay arintan iyo mawduucan aan toddobaadkan rabno inaanu gorfayno wiilka arintan soo food saartay shacab weynaha magaalada Jigjiga maxay kula talinayaan war mar haddii aad heshay jacayl iyo lacag ma lacagta raac baa la leeyahay mise gabadhii aad jeclayd ee qalbiga saafiga ku haysay ku niyad samid ahayd ma raac baa la leeyahay ma labada gabdhoodba ka dhaxbax oo gabdho kale raadsa baa la leeyahay kullay waa nin iyo fikirkii iyo aragtidii waxaan jeclaan lahaa talada wiilka la siiyay daawasho wacan naftaydu nafay rabtaa naftuna nafkalay rabtaa wadnaha nabarbaa ku yahay magacayga waxa la yiraahdaa Cabdi Aadan Xasan suuqa waxaan kaga magac dheerahay Cabdi Dugdeedii marka jacayl xaasid ma waayo labada qof hadii ay jeclaadaan lacagtu way dhamaataa jacaylku laakiin ma dhawaado jacaylku waa shay qaaliya shay dhamaado maaha marka waxaan leeyahay ninka walaalkay waxaan kula talinayaa gabadha aad jeceshahay lacagtu way dhamaataa laakiin jacaylku ma dhamaado gabadha aad jeceshahay raac marka waxaan dheelahay wiilka iska daay lacagta ahligiisa qaato saasan ku talinahay magacaygu waa Aftaash Xasan
waxaan ku magac dheerahay tacaliire ani ahaanteyda waxaan dhihi lahaa saaxiibkayga jacaylka maaragtay wax walba ka weyn dee lacagtu way dhammaataa baan dhihi lahaa marka dee inuu maaragtay uu jacaylkiisa u adkaysto oo maaragtay uu maaragtay dhanka jacaylkiisa u barto baan soo dhaweynaa ra'yi ahaanteyda nasiib lama dhaafay adduunka nagaaday meel nabado lagu nastiyo nasri baane bahay kasugi nimca baane bahay kasugi muraad colaay cawleed waxaan leeyahay wiilka waxaan kula talin lahaa wiilka walaalkayda meeshii ku fiican wad arkaysaa marka lacag waxa ma tarto jacaylka wax ka fiican ma jiro marka gabadhaas way ku jeclaatay gabadha jacaylka isku qaadeen gabadhii uun la soco ee tan kale iska daaban ku dhilaan anigu haddaan la taliyo raayaantayda aniga wax leeyahay Cabdiraxmaan Macalin Ibrahim waaye wiilka iyo gabadha la sheegay waxaan kula talinayaa wiilka walaal iska ilaali jacayl lacagtu ku hodaysaa jacaylka wad banaan ku dhilaa yaa marka aanu haddii talo laga weydiiyey arrinkaas waxa aan kula talin lahaa horta lacagtu waxan waa adduunyo waa dhammaani marka aan jacaylka raac baan ku odhan lahaa anu waxba sii dheerayninba in waxan waa adduunyo oo wax laga yaaba in lacagtu dhammaato oo waa la waayi karaa oo waa iska adduunyo moogtaan marka calaya kulli xaal waxaan kula talin lahaa wiilkaa walaalkaya inuu jacaylka uu adkaysto raaco waayo naftiisu cidda ay ku kalsoon tahay unbuu ku degi karaa cid kale ka degi karaa ma jirto naftaydu nafbay rabtaa naftuna nafkalay rabtaa wadnaha nabarbaa ku yahay jacaylkana wuu nuglahay magacayga waxa la dhahaa Cabdi Carab Axmed marka ani lafteedu waxaan odhan lahaa sidii wiilkii hore fikirkii uu soo jeediyey inuu jacaylka raaco inankaasi oo jacaylka uu tixgeliyaa ayaa ilaaha banaan magacayga waa Maxamed Cabdiraxmaan Daahir kolka waxaan kula talinayaa anigu wiilka maadaama ay gabadh u soo bandhigtay guur degdega oo gabadhii ay lacag leedahay anu waxaan kolka kula talinayaa gabadha lacagta leh iska raac maadaama dee adduunkan lagu jiro ay lacagtii shaqaynayso oo ay gabadhii ku dhoofinayso ku soo dejinayso kolka gabadha ayaan anu waxaan kula talinayaa gabadha lacagta leh raac wiilka waxaan kula talinayaa inuu gabadha lacagta leh uu raaco uu magaranaysaa uu nolosha la wadaago gabadhan guurka degdega ah dee u soo bandhigtay dee waa xaawiye xoolaheedii maanta lamaba heli karayo gabadh maanta xoolihiina ku haysa ma garanaysayeen kulana kaalay nolosha wadaagni lamaba heli kara ilaahay baa laga heli karaa kolkaa wiilka waxaan kula talinayaa dee gabadhan lacagta le ma garanaysay nimcada qarso oo iskala wada cidna iska sheegin baan kula kariim guud ahaan shacab weynaha ku dhaqan magaaladaasi Hargeysa aan u soo noqdo kulle fikrada iyo aragtiyada bilaadanku way kala duwan yihiin waydoona aragtaan nin kasta fikirkiisu soo dhiibanaya adduunka waxa ugu xun talo waad gorfayni waad soo fadhiisan hadii hebel saasaan dhihi lahaa heblaaye saasaan dhihi lahaa laakiin haddii lagu dhaho adigu maxaa adiga haddaad ahaan lahayd ilaahay kama baryo marka nin kasta ma jecla inay dhibaato isaga soo food saarto balse qadarka alla laftirkiisa way ku timaadaa sidii hadda aad arkayseen suugaanta qaar baa lagu leeyahay naftaydu naf bay rabtaa naftuna naf kale rabtaa waa qisada caawa taagan oo kala khadadka taleefanka mudnaan gaar ah siiyo halo salaamu calaykum وعليكم السلام walaal marka hore waan kugu soo dhaweynayaa ka qaybgalka barnaamijka magacaaga iyo meesha aad ka soo hadlayso والله خير أبشر abshir xaggeed igala soo hadlaysaa magaalada Qabridaar aad baan kuu salaamayaa abshirow adiga iyo shacab weynaha ku dhaqan magaalada Qabridaar ee xarunta gobolkaasi Qoraxay rabadaan kariim baan hawada idinka leeyahay fikirkii aragtidaada abshirow waa fikirkayga xalwiye waxaan taageersanahay inuu gabadha weyn dambe inuu la qabto gabadha dambe inuu la qabsado utii hore daadka raaciyo haye marka micnaha sidee adoo noo falanqaynaya waan ka xumahay daawadahaasi khadka taleefanka ka go'ay waan uga mahad celinayaa ka qaybgalka iyo isku dayga ballaadhan uu sameeyey
guud ahaan shacabweynaha ku dhaqan magaalada Qabridahar ee xarunta gobolkaasi Qorraxayna waxaan leeyahay Rabadaan Kariim cawaysku haydin wacnaado hadda waxaan jeclaan lahaa bal mar kale inaan idinku soo duwo oo aad ila daawataan oo aad ila aragtaan gabadha yar ee iyadu xaaladda soo food saartay ee markaasi talada u baahan maxay kula talinayaan dadweynuhu maadaama gabadha ay ka weyn tahay isla markaasina waalidka ay ku tahay gabadha ka weyn wiilka u daa misaada uga soo horeeya booskee nambarkaaga xajiso bal mar kale bulsho weyntii magaalada Jigjiga aan idinku duwayo fikirka iyo aragtidooda ay soo gudbiyeen daawasho wacan gabadhana walaashayna waxaan kula talinayaa inaan gabadha lacagta leh ee aniga lacag leh ee macnaha walaashay iska doo aniga jeclo iyadana waxaan kula talinayaa walaalo jacayl xaasid ma waaye xaasid ha ku noqon walaasha u daa gabadhana waxaan kula talin lahaa hadii burburka reerka daa walaasha weyn oo ka weyn walaasha ka yar marka inaad burburka ka deyso weyn reerka intaad burburin lahayd adiga waxa fiican meel kale ma waaysid dad lacag haysato nin ma waaysid kala meelaha ina yar qashameer aad doonto gabadhana waxaan kula talin lahaa walaasheedu ka weeyaan inay marnaba meel cid kaga tagin walaasha oo laga tagaa wax kasta laakiin inaad ku soo noqoto ma adu nolosha waxaad ka soo ratay walaasha gabadha lacagta haysata waxaan ku oran lahaa dee lacagtaada walaasha waxaan ku lahaa jacaylkeeda ha ka xaasidini u daabaan ku oran lahaa jacaylkaaga dee bal cid kale oo la yaalaa kula ku shaqaysan karto kula shukaanso laakiin walaasha maadaama inanku uu jecel yahay u daabaan ku oran lahaa gabadhana waxaan kula talinayaa wiilka ha ka hadhin oo waxaan leeyahay inanka maadaama aad u soo bandhigtay dee waxaan leeyahay halkaa kaga hay aad wanaagsan tahan leeyahay gabadha kale waxay noqotay walaasheeda lacag leeyahay la soo furay gabadhii walaasha ee ka yareed jacaylkeega u daaban oo lahaano nasiib lama dhaafay adduunka nagaaday meel nabado lagu nastiyo nasribaane bahay kasugi nimcabaane bahay kasugi inanteerna waxaan kula talin lahaa yani muhiim maaha dadku waa la isfahmi karaa marka yani markay guurka kadib baa si fiican la isku fahmi karaa baan leeyahay marka gabadha yarna waxaan leeyahay maadaama gabadhu kaa weyn tahay qadar kalena uu ku soo dhacay waxaan leeyahay markaa adna suuqa gal oo wax ka wanaagsan daydayo ayaan kula talin lahaa ESTV waa mahadsantiin mar labaad bismillaahi raxmaani raxiim magacayga Caasha Geela Dheeraa lay dhahaa gobolka Wardheer baan ahay anigu haddii aan ka warramo xaaladaas horta waa xaalad laga bismilaysto lagana subxaanalaysto weeyaan waxaan ugu horreynayaa marka u horreysa gabadha lacagta leh ee caashaqa iyo jacaylka labada ruux dhex martay burburinaysaan ugu hormarahayaa waxaa weeye horta inaadeer gabadhaas baan la ballamayaa waxaan ku leeyahay gabadh yahayto lacag wax ma tarto gabadha yartaa ee walaasha ah iyo wiilka wuxuu noqon doonaa inuu dumaashiga noqon doono laga yaabaa laga yaabaa adna inaad ku luxsib baa laga yaabaa hadduu kuu soo dhaco waxaan ku leeyahay labada ruux ka qalle ceebtaadana allaha asturaan leeyahay iyada waa wax laga subxaanalaysto waxaasu gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijkeennan ila tali ee toddobaadkan ayaan soo gaadhnay waxaan u mahad celinayaa guud ahaan oo sharaf iyo cizi iyo karaamo mar walba mudan waa shacabweynaha sharafta mudan ee waqti xaadirkan aan is hor fadhino ee ku baahsan dacallada dunida oo aan la soo koobi karin guud ahaan waxaa idinka leeyahay Rabadaan Kariim Allah idinka raalli noqdo malaa'igina ha idin salaantaan hawada idinka leeyahay sidoo